caawa waxaa dunida muslimka looga hadalhayaa arrin saameyn weyn leh uu ku kacay wasiirka amniga qaranka Israel Itamar Ben-Gvir. ninkan odaga ah ee wasiirka Israa'iiliga ah ayaa maanta mar kale ku xadgudbay masjidka Al-Aqsa oo ka mid ah masjidka saddexaad ee muslimiinta. gudaha ayuu u galay masaajidka xilli dad fara badan oo askara ay la socdeen. waa markii shanaad uu xadgudub noocan oo kale uu ku kacay xilli qaar ka mid ah wadamada muslimiintu ay ka gaabsadeen inay wax war ka soo saaraan. Xamaas ayaa ka hadashay waxana ay tiri waa in jaamacadda carabta iyo sidoo kale ururka iskaashiga islaamka oo ka hadalka masjidkan iyo ilaaladiisa oo si weyn isaga saara muhiimad gooni ah. maxaa u gaar yeelay Itamar Ben-Gvir in masaajidka Al-Aqsa uu mar walba galo isla markaana xadgudub noocan oo kale uu ku sameeyo? warbixin ayaan idinkaga hayaa arrintan iyo waliba xaaladan saameynta ay ku yeelatay adduunka. dhinaca kale madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa ka hadlay xaaladda Iran. waxa aqalka cad war uu soo saaray lagu tilmaamay in Iran Ayatollah Ali Khamenei uu soo jeediyay in la galo wada hadal aan toos ahayn oo Mareykanka iyo Iran ay ka yeelanayaan arrimaha nuclear-ka. sidoo kale radarka diyaaradaha la socda ee guud ahaanba dunida ee dhaqdhaqaaqeeda sameeya xogtaasna aruuriya ayaa xaqiijiyay xog laga helay in maalmihii ugu dambeeyaba diyaaradihii dagaal ee ugu badnaa ay ku qulqulayeen dhinaca Faris waa Iran oo Mareykanku ay leeyihiin. dowladda Faransiiskuna waxa ay tiri haddii tallaabooyinka madax adayga ah ee Iran ay sii socdaan waxa ay ka dhigan tahay in tallaabo military aan la hori doonin, taas oo ka dhigan in wadamada reer galbeedka si u dhiganta dalka Ciraaq sidii loogu duulay 2003 in la arkayo weerar kale oo Iran ku dhaca. arrimahaasi ayaan eegi doonaa. waxaan sidoo kale fiiri doonaa haddii Iran ay la kulanto weerar uga imaanaya reer galbeedka, suuragal ma tahay dalalka Shiinaha iyo sidoo kale dalka Ruushka inay u soo gurmadaan oo dagaalku uu noqdo mid laba dhinac ay is hortaagan yihiin. caalamka waa la isku bira tumanaya waxaanay u eg tahay dagaaladu inay sii kordhi doonaan. labadaas qodob iyo qodobadii kale ee amniga bariga dhexe ayaan ku eegayaa guud ahaanba barnaamijkan kale ee caawa. waa Cabdicasiis Barrow ku soo biira barahiga bulshada. ma ogtahay in dhakhtar Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka. dhakhtarka oo daboolay baahiyaha caafimaad ee loo aadi jiray wadamada dibadda waxa uu filin doonaa dhammaan qalinka guud iyo kuwa casriga ah ee laserka. maalin waliba waxa uu heega kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore